wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland oo waraysi gaar ah idaacadda VOA ayaa ku tilmaamay warbixinta hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ay soo saartay mid dhinac ka raran oo ay hay'addu ka qaadatay sida uu sheegay wasiirku dhinac kaliyaata. marka ugu horeysa waxaan leeyahay warbixintaasi runtii waxay ka qaateen dhan kaliya qodobka meesha ku yaala horta marka ugu horeysa Human Rights Watch way ogaataa in dalku constitution leeyahay constitutionka uu dalku leeyahay saxaafadu waa qodobada ugu waaweyn ama afarta bilare ugu waaweyn ee dastuurka marnaba xukuumadda iyo dawladda Somaliland ma aha mid saxaafada caburisa ee waa mid isgelis waa laga yaabaa qof iyo labo iyo saddex sharciga la isla tegay ama sababo samaynaya nabadgelyo darro in lagu wada hadlo ama jawaana sababta kaliya oo wax ka mid ah weeye waxda garsoorka dalka ayay ka mid tahay annagu toos ma xidhno waxaanu waxda garsoorka ayaanu ku wargelinaa qof alla qofkii nabadgelyo darro wadanka ku sameynaya waa laga yaabaa mid iyo laba saxufi inta aan ogahay oo arrimas nabadgelyo waliba deegaano iyo reero islaynaya ku sii qabtay dab in maxkamadda looga yeero oo xeraaliyuhu dacwad loo gudbiyo waa laga yaabaa laakiin principalka dawladda Somaliland waxa weeye saxaafadda in la dhiirigeliyo waxaanu ka soo bilownay meel hoose maantana meelaha ugu sarreeyay maraysa laakiin shayga inta badan hadaynu warbixinta ka nimaadnaba laga cawdo waxa ka mid saxafiyiinta haysta qofkii in la soo xiro isagoo shaqo gacanta ku haya oo amar maxkamadeed ama ogolaansho maxkamadeed wasiir aan loo soo qorin ama aan loo keenin maxaa ka hortaagan in ay mas'uuliyiintu arrintaa tixgelisaan waxaan u kala qaadayaa labo midna waxa weeye waa arrin madaniya midna waxa weeye arrin criminal hadduu ninka saxafigii cid yiraahdo reer baa reer ku soo duulaya maxaad idinkuna berita samaynaysaa ma aha arrin civiliana ama arrin madaniya waa criminal act ayaa noqonaysa sababtoo labadii reer hubka isu guranayaan ama labadii degmo dabeedna saasaa dadku ku dhimanaya taas waxaan qabaa in arrinta biliiska u madax bannaan oo nabadgelyada ilaaliya tan annagu aanu saxaafadda kula macaamilo waxa weeye in xeraalyaha guud maxkamad dacwad loo gudbiyo xeraalyaha guudna dacwadda u sii gudbiyo maxkamaddu markaa ninka wariyaha u yeelo taanu dhiirigelinaynaa waa sidaa dawlad ahaan waxaa ugu jira lacag aad u fara badan inaanan caburinayn waxaad ku garanaysaa boriga soldier waxaanu siinaa $50,000 baanu sanadkii siinaa boriga wicha oo iyaguna gabdhaa waxaanu siinaa $30,000 ururada saxaafadda ayaanu siinaa waa dhiirigelin oo isugu jira public iyo private weliba laba qaybood baanu kala qaadno waxaanu ka dhignay qayb gabdhaha iyo qayb saxaafadda kaloo dhan ku jirto Khadar Maxamed Cakuule VOA Hargeysa.